ومالنتي calanka ummadda Soomaaliyeed haddaba maanta oo kale 1954 waxaa dhibada loo taagay calanka ummadda Soomaaliyeed Ano radio gama maqashay ha waa maqlay calankan maxuu ahaa waa calankeeni kan maaha calankeena kaas maaha hadanahay reer qarablan abo ها عيسو ها أبو caanood wuxuu leeyahay calankeena kan maaha waa kan reer Garabland u dabaaldegna maanta maanta waa maxay horta maanta waa 12 Oktoobar calanka buluuga ah waa kan saxda ah ee suurada u ah ummadda Soomaaliyeed waa kan ay u soo halgameen abayaasheen waa kan inoo ah astaanta qaranka Soomaali waa kan aan maalintan xorriyadda ka helnay Ingiriiska iyo Talyaaniga ee aan gumeystaha la dagaalnay aan surnay dhulkeena Soomaali oo idil haddaba yaa garanaya calanka goobtii ugu horeysay ee la surax iyo sanadkii aniga aabo waxaa la suray 26 Juun 1960 waxaa sameeyay calanka Maxamed Awaale Liban 12 Oktoobar 1954 maasha Allah waa sax haddaba waa sidaas caanood aabo hayaabo calanka waxaa sameeyay halyeeye Soomaaliyeed waxaa u soo halgamay halyeeye Soomaaliyeed waxaana markii ugu horeysay la saaray 26 Juun 1960 Hargeysa iyo dhammaan dhulalka Soomaaliya oo idil koowdii bisha Juulaayna 1960 waxaa la saaray magaalada Muqdisho haddaba aabo mar walba ku dadaal inaad calankaas gacanta aad ku haysaa lushaana mar walba waa kan aan caalamka kula tartamayno waa kan lagu aqoonsan yahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto hambalyo maalintu waa maalin weyn ayaan u sheegayaa dariska iyo saaxiibaday inay u dabaaldegaan calanka haddaba aabba ina Mariya oo aan u soo wada sheegno dhammaan dariska iyo asxaabteena si ay u lulaan calankeena qiimaha badan Nabiil